boqorka dalka Eswatini ayaa guursaday Nomkeba Zuma oo ah gabadha uu dhalay madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma. Meherka Nomkebo oo ah gabadha uu guursaday boqorka dalka Eswatini ayaa noqonaya 100 neef oo lo ah iyo 2 milyan oo rand oo ah lacagta dalka Eswatini laga isticmaalo oo u dhiganta $113,000 oo. waxaana madaxweynaha dhalay gabadhan Jacob Zuma iyo qoyskeedu Soori ahaan loo siinayaa lacag dhan $2 milyan oo, waxayna noqonaysaa sooriyadii ugu qaalisaneyd qaaradda Afrika. Kharashka kale ee ku baxaya arooskan ayaa gaaraya $3 milyan oo. Arooskan ayaa dhaliyay buuq badan, waxaana ka soo horjeestay 15 xaas ee kale ee uu horay u qabay boqorka Eswatini. Eswatini waa dal yar oo dalkiisu ay sabool yihiin. 40% dadweynaha Eswatini ayaa la nool cudurka HIV/AIDS. dadweynaha dalkii hore loo oran jiray Swaziland haddana loo yaqaano Eswatini ayaa dhaleeceeyay arooska boqorkooda, waxayna sheegeen in arooskani uu culays dhaqaale oo weyn ku hayo dhaqaalaha Eswatini. boqorka dalkan ayaa ku jira buugga la yaabka adduunka kadib markii uu noqday ninka dunidan casriga ugu guurka badan uguna fariinka badan. boqorka Eswatini waxaa diiwaanka ugu jira inuu soo guursaday in ka badan 305 dumar ah. boqor Mswati waxa uu leeyahay hanti aad u fara badan. hantidiisa gaarka ah waxay ku dhowdahay $200 milyan oo, wuxuuna maamulaa lacag qiimaheedu uu dhan yahay $10 bilyan oo. waxa uu leeyahay diyaarado khaas ah, baabuur qaali ah iyo qasriyo badan. mid ka mid ah diyaaradaha gaarka ee qaaliga ee boqorka Eswatini waxa uu dhaliyay muran sida uu ku hantiyay diyaaradda la yiraahdo Douglas MD-87 ee uu haysto boqorka dalkani ayaa lagu eedeeyay inay siisay shirkad macdanta ka shaqeysa oo Hindiya laga leeyahay. boqorkani sanad guurada dhalashadiisii 50aad waxa uu $16 milyan oo uu ku gatay diyaaradda Airbus A340. miisaaniyad sanadeedka qoyska boqortooyada Eswatini ayaa lagu qiyaasay inay dhan tahay $61 milyan oo. boqorka iyo xaasaskiisuna waxa ay si joogto ah malaayiin dollar ugu kharash gareeyaan dib u habeynta diyaaradahooda. boqorka Eswatini waxa uu leeyahay 60% dhulka dalka Eswatini, taasoo ka dhigaysa mulkiilaha ugu weyn Afrika. arrintaasina waa midda dunidu ay weli la yaaban tahay. waxa kale uu leeyahay 1 milyan oo hektar oo dhul beereed ah. in badan oo ka mid ah dhulkaas waxa ka faa'iideysta dadweynaha deegaanka, waxayna ku beerteen dalagyo kala duwan. guriga ugu raaxada badan ee boqorku waa qasriga boqortooyada ee la yiraahdo Lozita, oo hoygiisa asaasiga, wuxuuna inta badan u isticmaalaa shirarka siyaasadeed ee uu la yeesho madaxda martida.